markaad maqasho magaca burco waxaa maskaxdaada ku soo dhacaysa magaalada ay ku nool yihiin dadka murtida xigmadda iyo madadaalada u saaxiibka bartaan ku barbaaray burco anigu ku bardoogtaamay burco burcoy beledkaygii burco bartaan ku barbaaray burco anigu ku bardoogtaamay burco burcoy boqorada dhalay martigari lagu bartay haddaba muddooyinkii u dambeeyey burco waxay ahayd mid koraysa oo kobcaysa dhisme dhaqaale iyo dhaqdhaqaaq ahaanba waxaa sannadahan burco ka hirgalay ganacsiyo baaxad leh meherado waaweyn iyo meelo wax soo saar oo ka qayb qaata kaabayaasha dhaqaale ee bulshada mansoor hotel waxa uu markii ugu horraysay qaybtii saddexaad ka furtay magaalada burco haddaba mustafe cabdi cali oo aanu ku booqannay hoteelka waxa uu nooga warramay sida ay hoteelka iyo burco isula jaan qaadeen mustafe oo ah manajerka hoteelka ayaa dhinacayga fadhiya waxaana weydiin doonaa bal hodheelka mansoor iyo sida uu magaalada isbedelkeeda uga qayb qaadanayo bismillahi raxmaan raxiim maxamed aad baad u mahadsantahay iyo tv-ga saxanba dadaalka fiican aad noogu timaadeen iyo wax ogaanshaha mujtamaca iyo waxtarka gobolka kusoo kordhaad ogaanaysa maxamed bismillah waxa walaal wax weyn buu horta uu kusoo kordhinayaa hodheelkii wuxuu kusoo kordhinayaa dee kobac dhaqaalaha magaaladii soo galay kobac dhaqaalaha soo galay dhaqdhaqaaq magaaladii laftarkeegii baa imid oo dee hay'adihii iyo seminaaradii iyo mujtamacii magaalada imanayay baa isbedel ku imanaya marka kobac dhaqaalo fiican buu magaaladii kusoo kordhiyo magaaladii dhaqaalana uu galay shaqaalana uu galay labadii qayboodba oo ka qayb qaatay marka dhaqdhaqaaq fiican ayuu iyo isbedel fiican buu xawliga magaalada burco maalinba meherada cusub imanaysa meherada cusubna waxa u baantay dadkii waxaan sameynay raandinga sameynay iyo dhaqaalaheegiina shada wax iibsigiina yimaado marka taas uu mujtamacii burco iyo gobolka togdheer guud ahaanteedba isbedel fiican buu ku keenay hodheelkiyo sibinaaro badan oo lagu qaban jirin ba magaalada lagu qabtaa marka isbedel fiican baa walaalada Mansoor Hotel kulli Soomaaliland hotelada ugu caansan buu ku jiraa magaalada burco hotelka Mansoor meesha laga sameeyay oo ka yar durugsantay magaalada dadku markii hoteelka la sameeyay waxa niyadooda ku jirtay uu fog yahay lama gaari karo adeegiisu soo noqon doona bal maanta bulshada burco saas ula qabsatay dadku waa run oo isweydiinayeen taas oo mujtamac badan baa isweydiinay hodheelka magaalada ka baxsan laakiin baxsanaanshaha baxsantu magaaladu ka imanaya iyo hodheel ahaan inaan mujtamaca ka fogaano ujeedadeedu ma aha inaan mujtamaca wax ku kordhino ayaa muhiim ah marka dadka laftarkooda laba siyaabood baa hayeen dadku waxay u baahan yihiin meel furan oo opin oo hawadii dhacayso environmentkii kuwayd yahay oo maadaama seminaariyo shirweynayaal iyo xafladaha waaweyn aan ugu talagelayno marka taasaa sababaysay qodobka labaad oo ah in magaaladii ay kobac fiditaano dhaqaale yimaado marka anagu maalgelin oo kaliya kumaan soo kordhinay eeriyadii noo dhaweey laftarkeega iyo dhulkii deegaankiiba ka qayb qaadatay sidee wax u sii kordhaan marka mulkiilaha hodheelkan Cabdiqaadir Xaashi cilmi cidhiidhi kuma daro laakiin waxtar ayuu ku daraa marka taasaa keentay iyo qorshaha iyaga iyo hodheelkii aragtida mulkiilaha Cabdiqaadir Xaashi cilmi baa ahayd in magaalada meel ka baxsan laga sameeyo si ay magaaladuna uga soo daba guurto hodheelkii Mustafa magaalada waxaa jira hoteelo hore ka jiray idinka ka hor dhisnaa Mansoor Hotel muxuu kaga duwan yahay hoteelada magaalada ka jira wuxuu walaal isbedelka weyn uu kaga duwan yahay waxa way xajmiga uu qaadaya kala duwan hodheelkani waa hodheelka gobolka Togdheer ugu chiefka badan markay noqoto qolalka numberiska jira markay gobolka Togdheer noqotona waa hodheelka ugu hoolasha badan leh markay noqoto guud ahaan Soomaaliland waa hodheelka ugu hoolasha ballaaran leh guud ahaan Soomaaliland Mansoor Hotel burco marka isbedelku keenay waxa way kii hore wax jiray waxbaanu ku soo darnay haday noqoto xajmigii magaalada cabirkii aanu qaadaynay hurdada chiefka numberka dadka ah oo cadad aad u badan ah iyo hoolasha haday noqoto marka taasaan hodheelada kale kaga duwanay maadaama bulshadu ka filayso adeegyada cusub aad sheegtay maxaa bulshada burco maanta aad u ballan qaadaysaan oo ay ka helayaan hoteelka Mansoor ugu dambeyntii waxaan u ballan qaadaynaa runtii inaanu adeeg hufan oo raali ahaanshaha
iyo qalbi saafiya iyo macaamiisheeda aanu ku soo dhaweyno waxtar ballaaran leh waxii aan u furnay ay naga helayeen haddaanu Mansoor nahay. Mansoor waa hodheel standard waa qaybtiisa saddexaad ee aanu ka fur gobolka Togdheer ka fulno maadaama aanu gobolkii Togdheerna iyo ujeedada aanu imanahay inaanu dadka iyagii baahidii taalay aanu ka fargarayno. marka waxaanu ka mar walba aanu mujtamaca reer Burco maaragtay ugu bishaareynayna inaanu hayno hoolashii waaweynaa ee xafladahooda iyo shirarkooda guud ka qabanayay ta guud qaranka iyo tagaar ahaanada gobolkaba iyo inaan xajmi kasto gobolka Togdheer ku soo dhacaba aanu kafaalad qaadno oo aanu uga qayb qaadano horumarka gobolkana. ballanteedu waxa weeye shaqaaleysiinteeda aanu xooga saarno. waa Maxamed Mataan Gabalaax Maxamed Mooto Sahan TV Burco.